magaciisu waa Michael Joseph Jackson. waxa uu damcay in uu noolaado 150 sano. waxa uu magacaabay 12 dhaqaatiir oo gurigiisii ku noolaata si maalin waliba ay u baaraan xaaladiisa caafimaad laga bilaabo timihiisa ilaa cijiyaha lugihiisa. cuntadiisa mar waliba waxa lagu baari jiray goob sheebaar ah inta uusan cunin. waxa uu sidoo kale samaystay 15 qof oo alamiinta maalin waliba siiya. xitaa waxa loo sameeyay aalad technology ah oo la socota heerka oksijiinka xilliyada hurdadiisa. waxa la diyaariyay dad badan oo jirkoodii sadaqaysan kara markii ay isaga baahi noocaasi oo kala ah ay ku timaado, kuwaasi oo si weyn xaaladihiisa caafimaad loola socon jiray, iyaga oo dadka kale ee loo diyaariyay in ay jirkoodii ay siiyaan oo u diyaariyana si gaar ah loo eegi jiray xaaladooda caafimaad. maadaama ninkan uu ku riyoon jiray in uu noolaado 150 sano, laakiin macal asaf dhammaan isku dayadaasi waa ay fashilmeen. June 25 2009 isagoo da'diisu ay tahay 50, wadnihiisii ayaa joojiyay shaqadii. wax walba oo isku day ah ayay sameeyeen dhaqaatiirta 12 ahayd, balse ma aysan guulaysan. xitaa waxa ay u yeerteen dhaqaatiir kale oo ka timid Los Angeles iyo California. dhammaantood isku dayadooda ma aysan ka hor istaagin in geerida laga badbaadiyo. 25 sano Michael Jackson ma qaadi jirin tallaabo isaga oo aan la tashan dhaqaatiirta si riyadiisii ay ugu rumowdo ee 150 sano in uu noolaado. Jackson socdaalkiisii geerida ayaa shaashadaha caalamka si aad looga daawaday. ku dhawaad 2.5 milyan ayaa daawatay, waxaana uu ahaa tabintii ugu dheereed caalamka ee taariikhda gashay. balse baahintaasi waxay ahayd socdaalkiisii ugu dambeeyay, socdaalkiisii geerida, socdaalkiisii kama dambaysta. Michael Joseph Jackson waxa uu isku dayay inuu iska hor istaago ama uu hor istaago geerida, balse mowdka ayaa isaga ka awood badiyay. xaqiiqda qisada waxa ay tahay inaan wax hanti ah aanan haysan, balse ay jirto warqado ay magacyadeeni ay ku qoran yihiin oo si ku meel gaar ah xitaa nolosheeni ma ahan mid aan annaga leenahay. waxaa xaqiiqa in taajirka uusan qaldaneen, balse qaladka ayaa ah in aad noqoto taajir hanti leh. taajirka runta ah waa midka nafta taajirka ah, qanaacada, raali ahaanshaha iyo mahadnaqa. taajirka waa midka caafimaad qaba ee asturan kana baqaya alla dartiisna u shaqaysanaya. haddii warbixintan aad daawatay, fadlan ku soo biir channelkeena Tamam Production. mahadsanid.